alxamdulilah maanta inaan dad leeyahay maanta ayaa ogaaday. safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Danjire Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa hoygeeda ku booqday Foosiya Axmed Sheekh oo ah hooyo Soomaaliyeed oo sida muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada uu muujinayo uu dhibaato u geystay nin deriskeeda ah oo u dhashay dalka Turkiga. waxa ugu horeyn halkan ka hadlay Foosiya Axmed Sheekh iyo waliba Cabdiraxiin Maxamed Xuseen oo isaguna muwaadin deriskeeda ah. waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid oo sheegay inaan muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu xadgudbi karin sidoo kalena iyagana uga digay inay dadka Turkida ah ee walaalahooda ku xadgudbaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله الصوماليات واني سلامي maanta waxa ila fadhiya safiirka ayaa maanta ila joogo iyo walaalahay dhamaan dumarkii wiilashii dhamaantooda way ii soo gurmadeen ma sha Allah. nin Turkiya ayaa idilay markuu idilay gabdhi ilmahaygu ceersaday banaanku ila tagay ceejiyo igu qabtay marka saas way arinta marka gurigana wuu igu dilay dhabarka haraantii igaga dhuftay saas ayaa dagaalka ka bilowday. dagaalka markuu ka bilowdan ilmihii oo iga ceertay ayeeyadoo ila joogto guriga ayuu ku soo xiray iyo gabar oo ii dhashay oo qalan oo guriga ku soo xiray anigana banaanka ayuu ii baxsaday. fiidiyoogana waa aragteena u malay doonaa uu nii soo gaaray. marka walaalay waxaan ka rabaa in wax leega qabto dhamaantiina oo leeso istaago maxkamad ana diyaar ayaan u ahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Cabdiraxiin Xuseen waxaan ku noolahay gaar ahaan dalka Turkiga. markaan nin Turkiya ayaa maamada sadarkaysan waa dilay jug buu gaarsiiyay waxaan kula kacay qof fiican ayuu kula kacay waliba maamo hooyo ah oo caruur haysata. sidoo kale anagana wiil aan walaalahay oo wadanka jooga ayuu si arxandara ah dib u gaarsiiyay hooyadan wadakaysa si arxandara ah oo qof fiican adkeysan kareen dameerkuna aan ku siinin ayuu ula dhacay waliba jarna ka tooray. waxaan la joogay dajaliyadeedii iyo waliba safaardeedii iyo waliba safiirkeygii waan ugu hambalyeynaa sida wanaagsan waxna la qabteen. waxaan leenahay barakallahu in ilaahay ka jasiyo maamadana ilaahay si fiican oo caafimaad qabtana ilaahay waxaan ugu dhawaanay kaan waxaan rajeynayaa insha Allah in safiirka iyo waliba dalka Turkiga ee walaalahayga inay iyaguna sida waajibka sharciga dastuurka loo mariyaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. caawa oo ah bisha Maarso ay 28 tahay 2021 waxaan soo booqanay maama Foosiya Axmed Sheekh oo sida laga yaabo dad badan inay ku arkeen social media nin Turki ah oo deriskeeda ay soo weeraray iyadii caruurteeda galabta 5 galabnimo. wuxuu kaloo geystay falal kale oo ninkaasi xaafadda u geystay dad deriska ah saad maqlayseen Cabdiraxiin oo isaguna nala fadhiyo iminka walaalkii ayuu isagana ku xadgudbay. waxaa kaloo nala joogtay inan kale oo Soomaali ah oo la yiraahdo Nimco Jaamac oo iyadana uu handaday oo cayrsaday guriga ka cayrsaday. ninkaas Turkiga ah oo aad ku aragteen clipka galabta la soo galiyay 5 galabnimo inanka Cabdiraxiin walaalkiina 4 iyo barkii ayuu ku xadgudbay oo dilay. ninkaas deris buu leeyahay labada reerba oo gurigan aan joogno degan yahay qayb ka degan yahay. inta kaliya kuma ekeen ninku 2019kiina sidaas oo kale ugu xadgudbay xaafadda Foosiya iyo caruurteeda. galabta markaanu aragnay dhibaatada loo geystay Foosiya ayaanu u nimi markiiba waan wareysanay. waxaa ka muuqata in xadgudub lagu sameeyay gabadha Soomaalida iyo caruurteedaba. xadgudub kaliya ma aha in xitaa wali uu jiro khatar ay wali ku jirto oo maadaama qof deris la ah uu yahay 2019kiina ilaa 3 jeer ku soo xadgudbay laakiin beriga way dacweysay waana la xiray laakiin maxkamad ma geyn markaas la sii daayay. waxay noo sheegtay hooyadii inay ka maslaxday beriga
oo ka codsatay inay dacwada ka celiso. waa kan sanadkan maantana kusoo noqday. safaaradda Soomaaliyeed keyskan ama xaaladan iyada ayaa qaadaysa caawa laga bilaabo. annaga ayaa maxkamad la tiigsanana wadooyinka ku haboon ee dacwada loo marayana waa u maranaa. raalli kama nihin qof Soomaali ah oo dalkan joogo sharci ku jooga in sinaba loogu xadgudbo, mana lagu xadgudbi karo. sidoo kale dadka Soomaaliyeed yeyna ku xadgudbin dadka walaaladooda ah ee Turkida ah ee martigeliyay. wayna soo gaadheen dacwooyin sidoo kale Soomaali laga cabanayo. iyagana waxaan ka codsanaynaa Soomaaliduna inay yareeyaan ama joojiyaan xadgudubka waliba dhalinyarada ragga u badan. ha yareeyeen xadgudubka ay walaalahoodka martigeliyay iyagana u geysanayaan. raalli kama nihin Soomaaligu inuu wax dulmiyo ama wax ku xadgudbo. in lagu xadgudbana raalli kama nihin oo ficil baan ka qaadanaa. marka maamada iyo Cabdiraxiim walaalkii oo hadda naga maqan oo arday ah iyo Nimco xadgudubka loo geystay iyo maamada hablaheedu aad arkayseen mid kamid ah inay la sawirnayd. intaba waxaan u mari doonaa wadooyinka diblomaasiga ah ee aanu xaq u leenahay. maxkamad baanuna ninka la tiigsanana hadii la haydmo. ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa siday hadeerba u garab istaageen maamada shaarica lagu dhibayay inay sidaas oo kale isu garab taagaan qof kasta oo walaalkood ah oo agtooda lagu dhibaateynayo. Soomaalidu gobollo badan bay ka degan tahay dalka Turkiga. qofka u dhowbaa marka ugu horeysa dee laga rabaa inuu u hiiliyo oo dhibka ka celiyo. hiilkuna waxa weeye hadii walaalka wax dhibaato geysanayana gacanta qabo, hadii loo geysanayana u hiili oo dulmiga ka hor istaag. caawa Fawziya waa tii hadda hadlaysay, gurigeedaanu ka soo hadlanaa. qof kasta oo Soomaaliya oo xaaladaas oo kale ama mid la mid qabsatana sidaas oo kale gurigiisa ugu taganaa ama magaalada degay ugu tagi doonaa hadii la haydmo.